Animigeena maanta waxa uu ku bilaabmaysa la yiraahdo Elec. Elec waxa uu ahaa nin geesi ah oo waqtigiisii intiisa badan ku lumin jiray waxyaabo aan faa'iido lahayn sida kalluumaysiga. Markaas waxa uu yimid shaacir faqiir ah oo la yiraahdo Idris, wuxuuna weydiiyey inuu weysaynayo sihirka. Markii hore Elec wuxuu u maleynayay in Idris uu yahay wakiilka Didi, laakiin waxaa soo baxday in runtii isoo qabo inuu barto sihirka. Isla markiiba odayaashii waxay bilaabeen inay baraan sihirka, iyagoo ka fikirayo saaxiibada uu mustaqbalka yeelan doono iyo sida uu ugu baahan yahay inuu ka badbaadiyo weerarada bahalsan imaanayo markasta. Haweenkii waxbarashada ee culus, Elec wuu ku guuleystay inuu si dhaqso ah u barto sihirka. Xitaa markaas waxa uu ka niyad jabay inay maalin dhan ku qaadato inuu hal sihir barto, oo xitaa ma uu dhageysan odayaashii hadalkii ka guuxayay inay dadka adiga bil ku qaadato inay bartaan sihirka. Elec waxa uu si xamaasad leh uga codsaday Idris inuu baro sihir kale, laakiin waxa uu sheegay wiilka aad u xiiseynayay inuu hal sihir ku filan yahay. Maalintaas Elec taas kuma qanin, laakiin odayaashu waxay ku adkaysteen go'aankoodii, waxayna go'aansadeen inay waqtiga u haray ku lumiyaan kalluumaysiga. Elec waxa uu guuxayay sidii qaniinyo oo kale waqtiga oo dhan, laakiin maskaxdiisii iyagoo u sheegay inuu leeyahay karti weyn oo sihirka. Waxa uu sheegay Elec in xitaa la'aanteeda duruustiisii uu noqon doono sihir weyn mustaqbalka, oo uu ka codsaday inuu ka tago macalinkiisa. Elec markii uu maqlay hadalkaas aad buu u naxay, wuxuuna odayaashii weydiiyey sababta uu markii hore u bareen sihirka. Inta uusan jawaab u bixin ayaa kalluun u soo galay qalabkiisii. Odayaashu way argagaxeen, waayo weligii kalluun ma uusan qaadin. Elec wuu ku qoslay ka hor inta uusan caawin, isagoo u sheegay in sihirka isagoo kale ah uu yaqaano sida loo qabsado kalluunka. Si kastaba ha ahaatee, noloshii ardaynimo iyo macallinnimo way sii socotay. Kadib waqtigii wuu dhaafay, odayaashu waxay wax badan bareen Elec sihirka, laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaa macalinka si lama filaan ah ugu dhawaaqay inuu ka baxayo caasimadda. Elec warkaas aad buu uga humaaday, waayo taasi waxay ka dhigan tahay in aanu mar dambe la kulmi doonin macalinkiisii. Laakiin odayaashu waxay u haysteen taladii ugu dambeysay. Wuxuu u sheegay in Elec haddii uu fursad u helo inuu noqdo saaxir maxkamadeed mustaqbalka aan weligiis ku nugaadi doonin, laakiin ma fahmin waxa uu la jeedo hadalkaas. Wuxuuna weydiiyey maxaa markii horeba sihirka ay barteen. Odayaashii abbaar dareen murugo leh ku tuurtay. Mar uu ka hadlayay Elec hooyadii oo dhimatay oo u naxariisatay markii ay nooleed, oo uu isku dayay inuu wiilkeeda u abaalgudo isagoo wax bara. Taasi waxay ahayd markii ugu dambeysay ee Elec uu arko macalinkiisii, wuxuuna aad uga dadaalay inuu galo Royal Make Academy si uu mar kale ugula kulmo. Halkaas Elec wuxuu ogaaday in Idris uu mar ahaa arday isku mid ah oo ka qalin jebiyay heerka ugu sarreeya ee fasalkiisii, isagoo noqday saaxir maxkamadeed. Kastaba ha ahaatee, shaqadaas waa laga eryay dhowr sano gudahooda. Elec wuxuu bartay sababta ay odayaashu uga sheegeen inuusan noqon saaxir maxkamadeed halkii uu raaci lahaa taladiisii. Elec wuxuu go'aansaday inuu noqdo saaxir maxkamadeed si uu u awoodo maxkamadda cadaalad darrada ah lafteeda. Sheeko dheer oo gaaban, wuxuu ku guuleystay inuu gaaro yoolkiisii oo waxa uu noqday saaxir maxkamadeed, laakiin waxaa soo baxday inay tahay inuu dhageysto taladii macalinkiisii. Elec waxa uu garwaaqsaday tan keliya markii Gawain Prince uu ku eedeeyay xisbigiisii daawurka ee dhexda godka. Waxa uu weydiiyey amiirka sababta keentay arrinkan. Dameerkii dhogorta lahaana waxa uu sheegay in xilka laga qaadayo maadaama aanu waxba tarayn. Waxa uu ku hadlayo sidii uu had iyo jeer naftiisa ugu biimiyo safkii hore si uu u garaaco daanyeerka sihiroolaha dabka. Lini uu adeegsadaa sihirkiisii si uu isaga eeyo daanyeerta oo u joojiyo weerarada cadowga. Dhanka kale, Elec had iyo jeer wuxuu ku jiraa gadaasha, wuxuuna kaliya ku tuuri karaa sihirka taageerada naxariista leh. Regulus waxa uu sheegay in aanay xisbigoodii u baahnayn qof isaga oo kale ah oo u guuldareystay, kadibna ay sii caayeen Elec isaga oo sheegay in aanu xitaa u qalmin in loogu yeero saaxirada maxkamadeed. Elec wuxuu isku dayay inuu sharxo sababta keliya oo u isticmaalo sihirka taageerida, laakiin Regulus ma rabo inuu maqlo jawaabtiisii. Lini waxa kale oo uu ku raacsan yahay isaga oo ku tilmaamayo Elec fulay aan lahayn maskax.
si uu u sii galo godka oo uu mar walba dib u celiyo. Lexis si aamusan ayuu u ruyay heshiis sidoo kale, kadibna Lynn waxay sheegtay in aan u dulqaadanaynin isaga oo dhan sababtoo ah boqorku wuxuu amray inuu ku biiro xisbigoodii. Si kastaba ha ahaatee, hadda amiirka go'aansaday inuu soo saaro isaga, ma aragto sababta ay ugu dhaqanto isaga. Regulus ayaa sheegay in Alec uu yahay inuu helo dhibaha ugu sarreeya akademiyada, isagoo siiyo macallimiin si uu u helo kireed dheeraad ah. Dabadeed wuxuu weydiiyey sababta uu tooreyda ugu hayo iyadoo dadka caamada ah laga mamnuucay inay taabtaan. Alec wuxuu sharaxayaa inay u baahan doonaan tooreyda dhabaqa xiga godka, laakiin Regulus wuu ka xanaaqay isagoo toorey ayuu ka qaaday oo qabsaday Alec guntiisii, isagoo u sheegay in cidna aanu xisbigiisa ku aasin. Kadib amiirkii ayaa ka dafay khamiiskiisii sihirka, isagoo u sheegay in aanu u qalmin. Alec wuu ka niyad jabay. Daawade bartituu la soco, hana ilaawin inaad channelka subscribe saarto, fiidiyoga like saar, mahadsanid.